حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi qofkiinna si dhammaystiran uma rumaynin ilaa uu walaalkiis kala jeclaado waxa uu isagu naftiisa la jecel yahay. waxaa labaduba soo saaray xadiidkan oo isku raacay soo saariddiisa bukhaari iyo muslim. maxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidka? xadiidku wuxuu tusayaa inay waajib tahay in qofku waxa uu naftiisa la jecel yahay uu walaalkiisna waa dadka kale ee la jeclaado. iimaanka qofka dhammaystirnaantiisa ayaa la diiday haddii uusan ficilkaas la imaan. 2 waxaa soo hoosgalaya acmaasha fiican oo dhan ha ahaato wax la ictiqaadiyo ama lagu hadlo ama la falo. 3 in ay aad u fiican tahay in uu qofku waxyaalaha adduunyada la xidhiira la jeclaado qofka kale, sida inuu la jeclaado inuu maalqabeen ama mid magac leh iyo wixii la mid ah noqdo sida uu isaguba u jecel yahay. 4 waxaa laga fahmayaa xadiidka mas'alada iithaarka. iithaarku waa inuu walaalkii qofku u dooro ama u daayo waxa uu isagu u baahan yahay. waxaase laga soo reebaa waxyaalaha khayrka ah ee allaah loogu dhowaado ee ah camalka fiican sida sadaqada, cilmiga iyo cibaadooyinka kale oo iyaga waa in loo tartamaa laguna tartamaa. 5 iimaanka qofku waana siyaadaa waana nuqsaamaa sida xadiidka laga fahmayo. nusuus badan ayaa iyaduna ku soo aroortay oo dadku waxa ay u kala iimaan badan yihiin ama u kala iimaan yar yihiin sida ay u kala camal iyo cibaado la aqbalay fiican yihiin. 6 qofku waa inuu qofka kale la necbaadaa waxa uu naftiisa la necab yahay oo uu khayrka ula dadaalaa naftiisa iyo dadka kaleba, waana inuu dadka u ahaadaa sida isagu uu jecel yahay in loo ahaado. 7 dhanka kale waa in uu walaalihii u nacaa wuxuu naftiisa u naco, kana difaaca waxa uu naftiisa ka difaaco, uuna jeclaan lahaa in isaga laga difaaco, ugana naseexeeyaa wixii uu jeclaan lahaa in isaga looga naseexeeyo ee aan dantu ugu jirin. weliba haddii uu u arko in xagga diinta nuqsaani kaga jirto waa in uu ku dadaalaa sidii uu u hagaajin lahaa. 8 waxaa qof walba khayr la jeclaantan awooda oo keliya qof lagu manaystay qalbi saafinimo ka maran qish iyo xasad u qarsoon, oo waxaa farax geliya wixii walaalkii farax geliya, wuxuuna ka xumaadaa wixii walaalkii ka xumaado. xaasidnimadu waxay qofka gaarsiisaa in uu karhado in walaalkiis wanaagga kaga fiicnaado ama kulaba sinmo, ilaan wuxuu xaasidku rabaa inuu keligii wanaagga la gooni noqdo. iimaankuna sidaas waa lidkeeda. 9 in qofku rajeeyo helidda waxa wanaagga ah ee walaalkii la siiyey oo kale ka hor imaan mayso in uu khayrka iyo wanaagga walaalkiis la jecel yahay, oo waxay noqonaysaa dhinaca wanaag ku tartamidda. 10 salafkeennii suubanaa alle ha u naxariistee waxay si toos ah ugu sifoobeen sifadan, oo waxay walaalahood ula jeclaayeen wanaagga sida ay iyagu naftooda ula jecel yihiin, waana u naseexan jireen
moxamed bin waasic allaha u naxariiste ayaa waxa uu suuqa keenay dameer uu iska iibinayay markaas ayaa nin rabay inuu iibsado waxa uu ku yidhi raalli ma iiga noqon lahayd dameerkan markaasuu moxamed ugu jawaabay haddaan raalli ka ahay iskama aanan iibiyeen ibnu cabbaas radia allahu canhu ayaa isaguna yidhi waxaan marayaa aayad kitaabka alleh ka mid ah markaasaan jeclaanayaa in dadkoo dhammi ka ogaadaan cilmiga ku jira ee aan ka ogaaday cutbatulghulaam ayaa isna markuu afurayo wuxuu walaalaha ka warqaba camalkiisa ku odhan jiray ii soo saar biyo ama timir aan ku afuro si aad ajarkaygoo kale u heshid adna imaam ashaafici raximahullah ayaa isna laga wariyey inuu yidhi waxaan jeclaystay in dadku cilmigan bartaan iyadoo aan aniga waxba la iiga soo tiirin sida aad aragtaan ha yaraato erayada xadiidku laakiin macnaha ku jira aad iyo aad ayuu u gudawan yahay halkaanna kuma soo koobi karno inta aynu xadiidka berrito haddii ilaahay idmo ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa ilaahay إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين